الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهده هذا وحى نوصل الماضي وقضايا شغلية إن بدنا خلابا أن شركوا لهين شرك جود أو جورتي يو وكيلة iyo hay'adaha amniga oo dhan iyo wasiirada qaybta hawsha qaabilsan iyo dad kale oo badan oo waxgarada oo arrimaha laascaanood u dhum daloola waxaan ka shiray dhibaatada ka jirta ka taagan wali laascaanood si loo xareeyo waxaan nusra garanay in Somaliland ay ku filan tahay hawlaheeda oo ay xal kartaa arrinta haddaba arrintaasi loo galo wixii gunaad ka soo baxay waxa ugu horeysa dhammaan halkan aanu taaganahay oo mar labaadna aan u direynaa tacsi dadkii ku dhintay mudaaharaadayaasi ee shicibka ahaa oo si kadisa oo laba filaana arrintaas Soomaaliland uga dhacday aad iyo aad baan uga xunahay daan madaxdii qaranka nahay waanu ka tacsiyeynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geerahaas ku timid Soomaaliland oo dhammaan way la qaybsanaysaa xanuunka iyo dhibaatada arrintaana haddii alla yiraahdo marka ay nabadda dejino waa laga hawlgalayaa sida wax u dhaceen waa laga hawlgali doonaa kow tacsidaa kadib iyo dhibaatada aan la qaybsanayno horena aan u sheegay hadda aan ku celinayno dadka adduunyada oo dhan markay dhibaato dhacdo ee dadku iska hor yimaado ama ciidanka iyo mudaaharaad ha ahaadeen ama dad kale ha ahaadeen waxa jira siyaalo loo xalilo mashaakilka oo loo joojiyo inaan dhigi dambo inta ka badan daadan wixii dhibaatada keenay laga wada hadlo oo la xaliyo sidaa darteed maanta waxa noo yaala waxa weeye aan ku hawlgalaynaa in nabad magaalada laascaanood dad ku degaan laga wada shaqeeyo annagoo arrintaana qaybteeda ugu weyn kala shaqeynayna waxgaradka iyo haldoorka iyo dadka degan laascaanood madax dhaqameedkooda siyaasigooda caalimkooda sheekha ah dhalinyaradooda haweenkooda taasi waa ta koobaad marka nabadda la xalilo ee deganaanshaha ay isku filaato ay magaalada furanto ee dadku hawl galaan ciidamaduna way ka baxayaan ciidamadu uma joogaan inay dadka caburiyaan iyo inay dadkooda dhibaan midna waa kuwii daafacayay mudaaharaadka dadka mudaaharaadka ee ka xumaaday geeridii allahu naxariistay ninkii dhintay ee argagixisada dishay waxa u soo raacay 4 col oo kale oo Soomaaliland la dagaalamaya oo kow ay ka tahay argagixiso inta la hayo ee maxkamadu hayaan ilaa 2009 ilaa maanta laascaanood dadka lagu dilay waa 40 qof 40 qof waxa la hayaa oo kiiskooda la hayaa 230 sideedna waa fakad bay ku maqan yihiin 230 waxa xukuman oo la xukumay 3 oo jeerasha ku jira 7 waxa socda kiiskoodii sideedna fakad bay ku maqan yihiin labana maxkamadu way sii daayeen markaan si kala weegno 24 ayaa ah mas'uuliyiin qaran dadka la dilay oo u badan maxkamadaha xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka waxa labada ka dheer laba gudoomiye xisbi gudoomiyihii gobolka Sool ee xisbiga kulmiye iyo gudoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka Sool oo kii u dambeeyay 24 kaasi waa mas'uuliyiin qaran 16 waa shacab lagu dilayay waxay taageersan dowladda Soomaaliland hase yeeshee dadkii dambiyaha geystay oo qaarna xabsiga ay jiraan intii kala lahaayeen waxay yihiin oo la aqoonsan yahay oo la raadinayo
waxay shacbiga ku abaabuleen oy ka dhaadhiciyeen in ay Somaliland laysay dadka taasina waa cadowgii ku dilay oo haddana dowladdaadi ku dilayay iyo dadkaagii markaas ilaa 2009 ilaa maanta dambiyaasha dhacay waa intaa saasaani dowladda uga howlgashay sidaa darteed waxaan leeyahay shacbiga oonu fariintaa u diraynaa nabadii magaaladana soo celiya ciidamaduna idinka iyo nabadiinu bay ilaalinayaana way ka baxayaan wixii dheeraada maxaa ciidamada loo keenay cabsi baa la dareemay magaalada in dagaal laga dhex rido waxaa hadlay siyaasiyiin baarlamaanka Kenya ka mid ah oo Faarax Macalin kow ka yahay oo yidhi hala dagaalamo Faarax Macalin wuxuu ahaa ninka isagoo xildhibaan ah oo gudoomiye ku-xigeenka shirgudoonka baarlamaanka Kenya ah halkan yimid ee laascaanood tegey ee ku dhiirinay laascaanood inay ka mid ahaato Somaliland wuxuu ahaa ninka tegey laascaanood ee 10 arday ka soo kaxeeyey iyo carruurtiisii qaar ee jaamacadda Camuud geeyey ay wax ku barteen wuxuu ahaa ninka mar walba la taagay qadiyadda Somaliland si wax loo xalinayo ugu doodayay inay ku fadhido mid sharci ah dadka siyaasadda midabeeya ee maalinba mid roga warkooda waxba ka soo qaadi maayo laakiin maanta lagama filayo inuu yidhaahdo Somaliland waxaan culaysinayaa Somaliland iyo beero uu magacooda sheegayay oo ah dadku si qabari ah u dagaalamo wuxuu yidhi Faarax Macalin ma soconayso wixii Ingiriiska dhigay iyo isticmaalka ugu tegey Faaraxow aduu Kenyaan baatay qurumaha badan ee kala afka ee kala diinta ah ee Kenya ayada wax la qaybsatay oo la baasaboor tahay oo la aqoon tahay garan maayo ra'yigaasi wuxuu ka godaarayay Faarax intaasaan leh waxaa hadlay oo dagaal iclaamiyey madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa maanta kullaba lagama filayo inay Puntland dagaal ku iclaamsan Somaliland oo soo weerareen dhibaatooyin badan baa labadeena ayna haysta maanta annagu waxaan u taaganahay nabad iyo jaar wanaag waxaanu leeyahay dagaal lagama faa'iido ka joog haddii se aad ka fursan weydo oo weerarkaa soo qaadana wixii aad ka hashaad leedahay Somaliland qarnimadeena daafacdo waa diyaar laba dani wuxuu yidhi xasuuqa ka dhacaya laascaanood eegan mayno waa ka dagaalamayna laascaanood mudaharad bay ciidan boliisa iyo isku dhaceen dadku waa mashkalad Somaliland u taallo oo ay xalinayso kana garaabayso dowlad iyo shacab maxay u dhacday arrintaas dadka maxaa ku dhintay waanu ka siman laakiin waxaan ku leeyahay intii boosaaso ku dhimatay ee adiga iyo in diyaana ay ka dhimatay dhexdiina ee ka dhacday shan gore ka baadita intii ku dhimatay boosaaso maalintii gabadha xildhibaanada ee muqdisho joogtay ay ka soo degaysayna ma gaadhin waanu idin ducaynaynay oo mashkaladiina maanaan soo fargelin maanta talada adiga ku-xigeenkaa u gaadheen weerar aynu qaadno Somaliland aad bay arrintaa u dhegeysanaysaa oo ay maqlaysaa waxaan se kaga ciilaahay mar hadday Somaliland ciidankeeda shacabkeedu diyaaru dalkooda inay daafacaan haddii aad ka joogi weydo nabaddaa diiddo wixii aad ka hashaadada soo socon karaan arrinta danay iyo weerarka uu iclaamiyey inay xamran dowladda joogtaa la midaysato iyadu soo furtay waxaa u daliila maanta golisa shacabku intuu fadhiistay ayuu guddi u soo saaray arrinta Somaliland taasi waxay markhaati ka tahay in dowladda xamar ka dhisan maanta ay ka bareedhay in Somaliland ay weerar ku qaado wax ku kordhay waxaad istaawilisayba diyaar baan u nahay shantiina madaxweynaha ku jira xamar haddaad tiraan Somaliland weerar waa ka maanta waa ka qaadi karaa waa isfuranahay diyaar waan u nahay shacbiga Somaliland taas aynu sheegaynaa in maanta shacbiga xamar intuu golo fadhiistay oo Somaliland guddigii talaabo ka qaaday xalleed baan u dareemay waxaad ka heshiin baan leh waxa hadlay madax dhaqameedyo badan oo Kismaayo jooga oo Qardho jooga oo meelo kale badan jooga waa inoo kow Soomaali dhaqankeeda intaasoo madax dhaqameed oo dagaal ku wada xiransi
waxay yidhaahdeen dadkii la laayay ee 40 soo sheegay 100 ka dhigeen Soomaaliland baa laysay odayaashaas gartaan may qaadin xogagaal may ahayn arrintaa kamay gu gaarin waxay ku xukumeen inay fidna ka dhex abuuraan Soomaaliland dadka wadagan waana arrin uguba waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo waayeelnimo ku taliyay oo sidii madaxda lagu yaqaanay u taliyay suldaanka Suldaan Cabdiraxmaan duulaar ninkaas waa taliyay sidii nin islaami u garqaad jiray buu qaaday war colka la joojo nabada la doono buur saadiinta iyo nimanka gurmadka dawladda ka daay dab hashidina waatii aabihina ku halgami jiray waxaan ku taliyay oo aad ugu bogaadinayna nabad iyo ninka qaldarin uu joojiyo waana inta looga baahay dadka Soomaaliland dawladaha Ethiopia iyo Kenya ee qaybaha bulshada kamid ah Soomaaliya ku hadla ay ku soo faragelinayaan dagaalka oogaya Soomaaliland oo koow ka yahay baarlamantariyanka Faarax Macalin waxaan leeyahay daris wanaagsan baan u haynaa nabad iskaashi loo dawladda ku joogna nabadin baan u haynaa bal arrintan cusub ee shacabka Soomaaliya ku hadla qayb kamid ah ay ka soo baxdayna dee waxaan ka doonaynaa ka war doontaa si ay u dhacday waa dawladda Kenya iyo Ethiopia iyagana waxaanu ka warsugaynaa oo dareen nagu jira in aanu danay ereyga kaligi ku ahayn iyo Soomaaliland ee uu garab ka haysta dawladda xamar dareenkaana waa qabnaa iyagana waxaanu leedahay war jiraaba cakaaro iman warkiina sugayna waxaan ku soo gabagabeynaya daanu Soomaaliland oo 3 sano dawlad ahayd maanta intii isu soo urursanaysa la colaba Soomaaliland qarankeega difaac bay ugu furay ninkii naga maarmi waayo waan surana shacbiga Soomaaliland ayaan ku soo koobayaa ugu dambeyntii oo ah maanta Soomaaliland ma kala laha mucaarad iyo muxaafid qarannimada heegan baa loo waday 3 xisbi qaran oo waqtigoodii ka dhamaaday iyo 10 urur iminka siyaasadda u halgamaya dhammaantood maanta waxaanu ka midaysanahay in qarannimada la daafaco waayo intaas waxay u tartamayaan inay dalka maamulkiisa qabtaan marka dalka maamulkiisa la qabtay waa la soo weerar kama shaki qabo inay dhammaantood u wada heegan yihiin difaaca dalka iyo Soomaaliland qurbo joogiisa ka wax tabanaya iyo ka dalka jooga Soomaaliland maanta way u mudaysan tahay cadaawada iyo weerarka dani iclaamiyay iyo cid garab ku siinaysa in dalka ay ka daafacaan saasaan qaramada diyaarnahay kaanu ka soo baxan yahay mashkalaadda laas caanoodna Soomaaliland dhan baa isugu tagaysa annagoo walaayo waxa gaaray ka xun annagoo murugada la qaybsanayna waan la xalili karnaa haddii alla yiraahdo arrinta madaxweynaha ka hadlo si tifatiran uga hadlay oo kaamil ah waxaan ku daraa waxa weeye abaanu ku daraa guurtaan iyo 3 goloba waxa weeye inaanu madaxweynaha intaa uu yiri la qabno kuma shaqaynayno dadweynahana ka codsanayno inay sidaa u arkaan in dawladoodu jirto oo u talinayso danaheeda inay ka talinayso inay sidaa u arkaan waxaan kaloo leeyahay sidaa madaxweynuhu yidhi waanu ka xunnahay dadka mudaaharaadkii ku dhintay aad iyo aad baanu uga xun kama dhiman reer laascaanoode gidigeena inaga dhintay dadkii ay heladoodiina sabir iyo iimaan ilaahay saadiq ah idinka siiyo waanu leenahay waa ku daraynaa madaxweyne waxaan kaloo leeyahay Soomaaliland way isku filanta cid u soo gurmatana uma baahna iyadaa isku filan dawladdeeda iyo dalkeeday arrintan u tahay ka marti gelin mayno nin dal kale markii horeba u guuray oo dad Soomaali unaynu isku nahay iyo dawlado kale ka mid noqday maanta war ka marti gelin mayno dhegaysanna mayno nasnaxna kamay talan waxa ka taladeedu waxa weeye inay Soomaaliland isku dhimato dhexdeeda saasaanu u qaadanaynaa odayaasha haddaba madaxweynuhu
waxna magacaabayey waxna tilmaamayey saasaanu u qaadanayna qabyaaladana ha laga daayo qabyaaladana ha laga daayo waa ninkii markii horeba soomaaliba ka danaystay ee dowlada kale ka midihii dee war maanta noo talin maayo soomaalina u talin maayo annagana hadalka iyagaba daah waxaan kaloo leeyahay war dalka waa dowladdu way ku filantahay inay difaacdo waxay ku difaacanaysaana waa dadweynaha waa qaranka wey dadweynaha leh inay dalkooda difaacdaan oo ilaaliyaan oo dowladda isbarbar taagaan dadweynaha leh iyadu way hoggaaminaysaa sidaa madaxweynuhu yidhi waxaa inoo ballana inaynu inaguna arrinta laascaanood xal deg dega u helno xal deg dega inaynu u helno iyadoo qaybta mudnaanta koowaad aynu siinayno reer dadkan laascaanood u dhashay oday iyo waxgarad iyo rag iyo dumarba inaynu iyagu inay gacanta koowaad yeeshaan baynu ku talinaynaa kulana shaqayno nabadna ku soo dabaallo laascaanood giddigeenna ku wada shaqayno markaa waxaan leeyahay mudane madaxweyne iyo odayaasha kaleba sidaa aada u tidhi intayada kalena waa idinku garab taagan hawshii kalsoonaynu ku gelin waanaanu ku filannahay dadweynahana way iska degi doonaan oo waa la tusi inaynu inagu dantooda ka shaqaynayno iyo in cid kale meel fog uga soo talinayso way nala arki doonaan aada iyo aad baa u mahadsantii